بسم الله الرحمن الرحيم. أطيع الله في قولي أطيع الله في فعلي ولا أعصيه في يسري لا أعصيه في يسري ولا أعصيه في عسري أنسى مراتي وأحفظ بعض آياتي كتاب الله في قلبي كتاب الله في قلبي ويهديني إلى دربي أصوم الشهر في رمضان وأقرأ سورة القرآن أصوم الشهر في رمضان وأقرأ سورة القرآن وأعطي المال للمحتاج أعطي المال للمحتاج الله في جهري ولا أعصيه في سري أطيع الله في جهري ولا أعصيه في سري فربي مبدع الأكوان ربي مبدع الأكوان وربي خالق الإنسان له الخير له الشكر له الحب له الذكر له الخير له الشكر له الحب له الذكر فيا رباه يا غافر يا رباه يا غافر أنلنا فضلك الغامر إلهي maalinta aakhira rumaysan carabkiisa ha ka adkaado ama khayr ha sheego ama ha aamuso laanna man samata naja ruuxii aamusa oo sharka ka aamusa oo carabkiisa ka adkaada ruuxaasi waa badbaaday buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh bimacnaa ruuxii aan carabkiisa ka adkaaninna waa halaagsamay carabkaaga marka inaad ka adkaato ood fuxshigiisa ka qabato ood xanta ka celiso oo wax ka sheegidda muslimiinta aad ka xakamayso adaydani kugu jirtaa saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala fi alqur'aani alkariim wuxuu ku yidhi oo inoogu sheegay waylun likulli humazatin lumazah halaag waxaa iska leh dadka xamashada badan ee dadka aad u xanta kuwa duridda badan ee dadka aad u duree ceebtooda raacraaca kuwaasi waa halaagsameen adduun iyo aakharaba waa halaagsameen waa ruux shaqadiisu ay tahay uun dadka kale inuu arko haddaad adigu isu fiirsan lahayd ood laftaada dib ugu noqon lahayd waxaad ogaan lahayd waxaad dadka ku sheegayso wax ka badan baa kugu yaalla waxaa jira athar mawquufa marna culimmadu ay rajaxaan inuu marfuuc yahay xadiid saxiixa uu yahay oo odhanaya yubsiru axadukum alqadaa fii cayni akhiihi walaa yubsiru aljidca fii caynihi midkiin waxaa u muuqdo uu arkayaa qoridaaf yar qashin yar oo walaalkii ku jira ishiisa laakiin dogob dhan iyo qori weyn oo isaga ishiisa ku jira ma arkayo bimacnaa ruuxa ceebtiisa uma muuqato soomaalidu waxay yidhaahdaan maroodigu takarta isaga saaran ma arkee midka kale takarta saaran buu arkaa adiga haddaad ceebtaada u fiirsan lahayd intaad dadka ku sheegayso in ka badan baa kugu taalla in ka badan baad leedahay laakiin ruuxa marka ceebtiisa laga qariyo midda dadka lagu mashquuliyaa haddiise ilaahay wanaag uu kula rabo tabaaraka wa tacaala ceebtaaduu ku tusaa xumaantaaduu ku tusaa markaasaa waxaad ku mashquuli adigu saad isu hagaajin lahayd dadka kale wax ka sheegoodiiyo ceebayntoodiina waad ka mashquuli haddii ilaahay wanaag kula rabo tabaaraka wa tacaala haddiise laakiin xumaan lagula rabo waxaa dhacaysa waxaa lagaa qarinayaa ceebtaadii waxaad isla noqonaysaa ruux daahir ah oo nadiif ah oo kaamil ah oo dhammaystiran oon waxba ka dhimanayn dadka intooda galena waxay kula noqonayaan wax wada wasakhaysan oo kala dhiman markaasaa waxaad dabagelaysaa dadka ceebahoodii heblo waa sidan heblo waa tan
hebla qaabkanay u taallaa hebla gurigeedu waa saa hebla dhaqankeedu waa saa hebla dharkeedu waa saa hebla waatan dadkii baad ku fooftood ka shaqaynaysa adiguna isma ogid haddaad is ogaan lahayd wax badan baad ka gaabsan lahayd walaalayaal marka carabkeenna inaan ilaalinno maslaxadeennaa ku jirta nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh mucaad ibnu jabal ayuu arrimo fara badan u sheegay tawxiidkuu u sheegay salaaduu u sheegay jihaadkuu u sheegay arrimo fara badan oo muhim markuu u soo sheegay yuu ku yidhi alaa ukhbiruka bimilaaki daalika kullihi mucaadow ma kuu sheegaa waxaasoo dhan wax isku fuuqfuuqsadoo wada milkinaya waxaasoo dhan wax ka khatarsan ma kuu sheegaa haa buu rasuul ilaahayow markaasuu nebigu intuu carabkiisa qabtay buu wuxuu yidhi kan iska qabo kufa calayka haada kan iska qabo buu yidhi naftaada kan ka celi iska xakamee markaasuu wuxuu yidhi oo rasuul ilaahayow waxa aannu ku hadlayno miyaa naloo qaban doonaa waa cajiibe waxaanuun hadalkan aan iska wadnee daldalaynoon miyaa laysaga daba imaan doonaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam hakiiladka ummuka yaa mucaadow hooyadaa kuweyde hooyadaa gablantaye dadka naarta ma waxaa ku rida wuxuu carabkoodu shaqaystay waxaan ahayn dadka ama naarta gadaalgadaal ha loogu tuuro ama madax ha loogu tuuree ruux naar galay carabkiisa unbaa geliyey saas daraaddeed carabka iska qaba buu nebigu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh carabka iska xakamee lisaankaaga iyo carabkaaga xifdi mucaadow dadka naarta waxa geliya waa un carabkee carabku waa xubinka ugu fudud ee si fudud kuu gelin kara ilbiriqsi wax adduunkaaga iyo aakhiradaadaba baabi'inaya markaad doonayso inaad gacanta wax ka qabato waxay u baahan tahay shaqo wey ma fududa inaad shay ku tillaabsato oo lugahaaga ay tillaabo u qaadaanna ma fududa laakiin labada shay ee ugu fudud waa carabka iyo indhaha waay ishuna si fudud bay waxa ugu dhacdaa carabkuna si fudud buu kelimada u yidhaahdaa waa halka xubin ee adigoon dareemin ku gelin kara ama ilaahay naxariistiisa iyo ridihiisa iyo janno daa'im ah ama ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisa iyo cuquubo daa'im ah xubinkaasi marka waa xubin khatar ah saas daraaddeed baa halistiisa waxaad ku garan nebigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina arajula layatakallamu bilkalimati min ridwaan illaah maa yadunnu an tabluqa maa balaqat fayaktubu allahu lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi alqiyaama ruuxu hal kelimuu ku hadli kelimadaa umuuna fiirsanin meesha ay gaadhay inay gaadhaysana lama ahayn si fudud bay afkiisa uga soo baxday kelimadaasi baa ilaahay wuxuu ugu qorayaa ridihiisa ilaa qiyaamada kelimo wanaagsan oo uusan ka fiirsanin oo uun si fudud carabkiisa uga soo baxday buu rido ilaahay ku gaadhaya wa ina arajula layatakallamu bilkalimati min sakhati illaah maa yadunnu an tabluqa maa balaqat fayaktubu allahu calayhi biha sakhatahu ilaa yowmi alqiyaama hal kelimo oo ilaahay cadhadiisaoo dembi ah ayaa si fudud carabkiisa uga soo baxaysa kelimadaasi lama ahayn halkaasay gaadhaysaa mana uusan ka fiirsanin kelimadaa keligeeda sababteed ayaa ilaahay agtiisa waxaa loogu qorayaa cadhada alle ilaa qiyaamu saaca ilaa qiyaamadu ka imaanayso addoon ilaahay u cadhooday buu noqonayaa maxaa keenay hal kelimo hal eray hal weedh ah oo aan si culus kaftan buu u yidhi si fudud bay uga soo baxday lamaysan ahayn kelimadani dhib weyn baa ka imaanaya muusan islahayn kelimadii iyadaha waxay keentay adduunkiisa iyo aakhiradiisaba inuu khasaaro maadaama ay sidaas tahay inaynu aad uga fiirsannay u baahanta inaynu aad u fiirsanno oo carabkaynu xakamayno oo aan is-ilaalinay u baahanta waxyaalaha ugu badanen marka iska ilaalinayno maxay yahay waxa ugu badan iska ilaalinayno waxaa ka mid ah oon iska jirayno xanta dadka muslimiinta ah wax ka sheegga dadka muslimiinta ah
oo waayahan dambe noqotay arrin iska furan nolosheennaba qayb ka mid ay noqotay haddii majlis iyo meel la isugu yimaado ama guri la isugu tago ama gole la isugu yimaado ama meel uun dadka kulmiso ama jid la isaga hor yimaado oo wax yar la wada istaago waxa laga sheekaysanayo waa dad muslimiina iyo cirdigooda iyo sharafkooda khaasatan dumarka waxa u badan ee naarta geeya waa carabkooda nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii uu yidhi dumarka waxaan arkay iyagoo naarta u batay naartaan daalacday saa dadkii galay dumar baa u badnaa buu yidhi gabadh baa soo istaagto waxay tidhi oo rasuul ilaahayow sababta aan naarta ugu badannay maxay tahay nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh takfurna allacna wa takfurna alcashiir labadaa qodob baa naarta idiin badisay lacnadaad badisaan aflagaadadaad badisaan caydaad badisaan wax ka sheegaad badisaan carabkiinnu ma kontarolla qodobka labaadna zawjkiinna iyo cashiirkiinna idinla nool ee noloshu idinkala dhaxayso ayaad ku kufridaanoo ku abaaldarrootaan oo wanaaggiisa iyo ixsaankiisa ma qirtaan labada qodob ee naarta idiin badisay waa carabka iyo jasaarnimada iyo ixsaanka oydan qirin dadka u badan ee mararka carabka naarta ku geli doona raggu waxaa laga yaabaa inuu gacanta iyo dilka iyo dhaca iyo wax khiribidda iyo wax burburinta iyo inay naarta in badan ku galaan laakiin dumarku gacantoodii iyo lugtoodii iyo waxay qaban lahaayeenba carabkaasaa u badan waxaa loo baahanyaa marka in la iska ilaaliyo xanta la iska ilaaliyo dadka muslimiinta ha xamanin waxa ka sheegin haddaad xamato soomaa ood ceebahooda sheegto ood majaalista ku sheekaysataan ood ku xalladaysataan waxaad ogaanaysaan dadkan ilaahay bay leeyihin ruuxu mar hadduu muslim yahay allana ka baqo waa weli ilaah aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dadka ilaahayna rumaysan ka cabsadoo dariiqiisa hayaay waa awliyada ilaahay haddii lagaa kari waayana oo afkaaga iyo addinkaagu ka nabadgeli waayana ilaahay baa kula dagaalamaya sa allah tabaaraka wa tacaala sooma dhihin man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli awliyadayda ka mida ruuxii la collaytama oo colaad u qaada oo dhiba dagaal baan u cilaamiyey ha ku talagalo dagaalkayga dagaalka lagula gelaya waxaa ka midoo rabbigaa kula geli doono alimaamu axmed iyo abu daawuud waxay soo saareen xadiid abu barzat alaslami laga warinayo arbacaduna baraa ibnu caazib bay ka warinayaan wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu qalbahu war dadka aan carabka uun ilaahay ka rumeeyeyow qalbigoodana uusan iimaanku gelinow dad afka keliyeeta uun ilaahay ka rumaysan oo carabkay ka ashahaadanayaan laakiin qalbigooda iimaanku uma degin dadkaasow laa taqtaabu lmuslimiina muslimiinta ha xamanina muslimiinta xanta ka daaya walaa tattabicuu cawraatihim cawradoodana ha dabagelinaya ceebahooda dadka muslimiinta ceebahooda ha dabagelina ha raaraadinina fainahu man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim tatabbaca allahu cawratah walaalkiisa muslimkaa ruuxii ceebtiisa dabagaloo raacraaca oo raadiya ilaahay baa isagana ceebtiisa dabagaloo raaraadiya oo macnaha waxa way raacraaca waman tatabbaca allahu cawratahu yufadixu walow fii jawfi beyti ruuxii ilaahay uu cawradiisa dabagaliya ceebtiisana alla wuu fadeexayn xataa gurigiisa dhexdiisaba ha noqotee waa fadeexayn doonaa allah tabaaraka wa tacaala haddii lagu kari waayo marka oo xanta iyo ceebaynta iyo wax ka sheegga
iyo dadka ceebahoodii iyo dhaliishoodood raacraacdood dabagashood uruuriso guryaha tag soo uruuri dumarka la kulan ceebaha soo uruuri wareegayso adiga shaqadaada ka dhigo inaad dadka xumaantooda soo uruuriso kuna sheekayso waxaad ogaataa adigana ceebtaada ilaahay baa dabagelaya allah markuu ceebtaada dabagalana wuu ku fadeexayn doonaa xataa gurigaaga dhexdiisana ha noqotee ma ruux ilaahay uu dabagalay baa fakanaya ma fakanaysid aakhare intaan la gaadhin baad adduunka lagugu fadeexayn doonaa maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku asturi markaad dadka asturto laakiin markaad ka shaqayso inaad dadka ceebahooda bannaanka u soo saarto adigana ilaahay baa ceebtaada bannaanka u soo saari mana fakan kartid xataa gurigaaga gudihiisaa lagugu fadeexayn doonaa gurigaaga gudihiisaa lagugu fadeexayn doonaa maalin dhoweyd wadaad baa jiray sheekhnimo sheeganayay oo masaajidda mid ka mid a magaalada Nairobi wax ka akhrin jiray nin sheekhnimo sheeganayuu ninkii waxaa lagu imtixaanay inuu culimada caayo culimadii hore rag qiimo badan leh oo diintan u soo adeegay inuu caayo ibn Taymiya ibn al-Qayyim sheekh Maxamed ibn Abdul Wahhab mar alla markuu istaagaba ama khudbo ama muhaadaro ama kelimo markuu jeedinayo inuu ragga caayo waa ilaahay wuxuu qadaray tabaaraka wa tacaala dadkiisa markii laga kari waayo isaga kugu maqan waa lagugu maqan alla wuxuu qadaray ninkii nooca ahaa guri uu joogay oo qaraabo ay ahaayeen uu ka cuntayn jiray gabadh yar oo joogtay gabadh yar oo guriga joogtay oo aan qaan gaadhin ayaa isagoo oo farax xumaynaya lagu qabtay waa ninkii sheekh ahaa xaal baa loo dhigtay masaajidda hortiisa lagu garaacay reerkiisii baa xaal loo dhigtay ninkii dhul baa qaban waayey oo cir baa asturi waayey ilaa uu cararay oo waddankiiyo magaaladaba uu ka cararay adiga markaa dadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala shaqo ka dhigato oo lagaa kari waayo waxaad ogaataa waa lagugu maqan yahay ilaahay goortuu ku fadeexayn doonana ma foga gurigaaga gudihiisana lagugu soo gali doonaa xataa gurigaaga jawfkiisa lagugu fadeexaynaya ilaahay dadkiisa u daa oo adoomada ilaahay faraha ka qaad warkan aad leedahay waa fool xun yahay ilaahay baa saa u abuuray kan naafada ilaahay baa saa u galay kan dabeecadda xun Allah siiyey tabaaraka wa tacaala adiga haddaad wax la dhaantood wax kaga roontahayna adigu ismaadan siinina Allah ku siiyey allihii qaybta ku siiyey intaad ku shukrido dadkan ceebtooda iyo xumaantooda hadaba galin hana caayin hana dhaleecaynin hana xamanin meel lagu xamanaya haddaad aragtana walaalkaaga muslimka cirdigiisa iyo sharafkiisa waa inaad difaacdo waxa aad u badan markaan majaalista isugu nimaadna khaasatan dumarka majaalista markii la isugu yimaadiyo goobaha iyo guryaha lagu sheekaysanayo mid baa xamanayso xan qolay xamanaysa guri bay xamanaysaa intii kale meesha fadhidayna way u qoslayaan oo way u marxabaynayaan والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما dadka mu'miniinta Allah wuxuu ku sheegay ma xaadiraan zuurka iyo beenta iyo dambiga ma xaadiraan hadday laqwiga iyo waxyaalaha aan macnaha lahayn soo maraana ayagoon ku wasaqoobin oo wanaagsan oo nadiif ay maraan oo dhaafaan hadiise laakiin wixii aad u marxabayso oo wixii u camirto oo u shactirayso oo u qosasho xanta midda waday iyo adigu isku dambi baati innakum idan mithluhum iyagoo kala tiimbu Allah tabaaraka wa tacaala kuwan ilaahay aayaadkiisa wax ka sheegaya xumaanta sameynaya la fadhidaan ee aydan ka kacaynin kana celinaynin idinkiya iyaguba isku dambi baati ruuxa dambiga wada ee xanta wada ee dadka wax ka sheegaya hadaanan qabanin
oodan qaban kareenina isaga kac haddii kaleetana qabo oo waxaad tidhahdaa war dadka xanta ka daa naa dadka xanta ka daayo dadka waxa ka sheegin adiguba ceeb baad leedahay ceebtaada allah ku tuso hadaad qaban karta qabo hadaad qaban kareenina waxa la doonaya inaad isaga kacda la doonaya waxa la rabaa marka cuquubadaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ku dhacaysa allana tabaaraka wa tacaala walaalayaal sida uu mas'alada meeshuu gaadhsiiyey iyo xanta siduu u fool xumeeyey u fiirsada wuxuu rabbi ka dhigay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi walaa yaqtab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu qaarkiin qaarka kale yuusan xamanin ha isxamanina ma jeceshihiin midkiin ma jecel yahay walaalkii oo mayd ah hilibkiisa inuu cuno walaalka oo mayd ah oo dhintay inaad hilibkiisa intaad googoosato aad cunto ma jeceshahay midkiin jecel ma ku jiraa fakarihtumuuhu waad kahateen waad dhibsateen shaki male mar haddaad kahatay walaalka oo mayda hilibkiisa inaad cunto xantu waa hilibkiisiyood cunaysa waa isagoo mayda hilibkiisa inaad googoosato iyo inaad xamataay waa isku mida hilibka walaalka ha cunin waxaa laga yaabaa waxyaalo badanoo innaga aad inoogu fududo hadda inaan aad baa muxuu aha dhib weyn nala ahayn ayaa ilaahay agtii tabaaraka wa tacaala aad u culus caaisha radi allahu tacaala canha wa ardaaha ayaa waxaa dhacday nebiga waxay ku tidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xasbuka min safiyata kada wa kada safiya waxaa kaaga filan bay tidhi inay sidaa iyo sidaa tahay safiya waa xaaskiisii kale way safiya bintu xuyay waxay tidhi safiya nebi alla waxaa kaaga filan inay sidaa iyo sidaa tahay waa sidee iyo sidee riwaayaadka qaar baa tilmaamayo waxay leeyihiin waxay tidhi waa inay gaaban tahay waa haweenay gaaban bay tidhi oo idinka hadda ma idinla tahay hebla way gaaban tahay xan inay tahay hebla way gaaban tahay xanba uma haysannaba markaasaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laqad qulti kalimatan low musijat bimaa'i albaxri lamasajathu caaisha waxaad ku hadashay kelimad haddii badda lagu barxi lahaa badda oo dhan doorin lahayd oo barxi lahayd hebla way gaaban tahay badda way wasakhayn lahayd biyahaad aragteenee badaha fadhiya heblaa gaaban ayaa wasakhayn lahayd oo bedeli lahaaba biyaha dhanba hebla way gaaban tahay hadday culayskaa leedahay bal wixii ka sii daran ka war way fool xun tahay ka war waa basari haddaad tidhahda ka war gurigeedu waa hallaysan yahay haddaad tidhahda ka war haddaad intaa kaba gudubtood cirdigeedii iyo aad tidhaahda waa haweenay dhaqan xun ma dhaqan fiicna haddaad kaba sii gudubtood qadafto ood tidhaahdo muxuu ahaaye way gogol dhaaftaa walciyaadu billaah ood sii gudubto ka warran waa khatar waa meel ciddii ka yacni wax ka raadisa inay ku fashilmiyay ku baabi'i shaki uusan jirin waxaa jira xadiid kale oo xasan ah oo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo socoto safar ah ayaa waxaa la socday abubakr sidiiq iyo cumar baa la socday ciidankii nebiga la socday bay ka mid ahaayeen abubakar iyo cumar marka waxaa la socda nin labadooda u adeegaya nin u adeegahaya oo shaqooyinka yaryarkaa oo raashinka diyaarintiisa shaqaale ahaan nin ula socday ayaa jira socodkii la socday baa meel la degay markii meeshii la degay ayaa ninkii waxoogaa wuu daalanaayay uu iska yara seexday hurduu galay iska yara culus abubakar iyo cumar waxay yidhahdeen war ninkii hebel ahaa wuxuu seexday hurdadii guryaha la seexan jiray laan ruuxu markuu socoto yahay hurdaduu seexdo iyo hurdada guryaha la seexda way kala duwanta
war guryaha hurdadoodii buu galay bay dhaheen waa kelimo hurdo weyna hebel hurdo culus buu seexday waxaad moodaa inuu gurigiisii jiifo wax adag ma aha innaga marka laynoo fiiriyo maanta wax sii weynba ma aha abubakar iyo cumar intaa markay sameeyeen oo hadalkaas dhaafsadeen oo intaa ku sheekaysteen ayay waxay ninkii uu soo kaca way dirsadeen waxay yidhaahdeen nebiga u tago waxaad nooga raadisaa iidaan waxaan raashinka ku iidaamanno abubakar iyo cumar baa soo diray iidaan bayna ku weydiisanayaan nebi allow ee iidaan noo soo dhiib ninkii waa tegey nebigu u tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi rasuul ilaahayow abubakar iyo cumar baa isoo diray waxayna kaa codsanayaan iidaan inaad u soo dhiibto nebigu farriin buu ku soo celiyey wuxuu yidhi ku noqo waxaad tidhaahdaa waad iidaamateen waad iidaamateen maxay tahay iidaanka kalead u baahantihiin ninkii waa soo noqday abubakar iyo cumar buu u yimid wuxuu ku yidhi nebigii wuxuu idin yidhi waad iidaamateen oo iidaankii waabad hesheenba maxay tahay iidaankaad raadinaysaan way yaabeen marka way soo tageen nebigay u yimaadeen sal alla alay wasalam markaasayna rasuul ilaahayow nin baan kuu soo dirsannay iidaan baan kaa codsannay farriin baad nagu soo celisay waad iidaamateen ee maxaan iidaamanay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen buuri waa kee waa ninkii ay ku yidhaahdeen hurdo weyn buu galay walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen maxayda iidaanka kaledii weydiinaysaan waa isku naxeen markaasa waxay rasuul ilaahayow ilaahay dembi dhaaf noo weydii rasuul allow ilaahay dembi dhaaf noo weydii markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam anigu dembi dhaaf idiin weydiin maaye isagii intaad u tagtaan ilaahay dembi dhaaf noo weydii ku dhaha isagaad khalad ka gasheen u fiirsada marka ruuxani waa hurdo weyn yahay hilibkiisii baad cuntay oo hilibkiisii baad ku iidaamatay wixii intaa ka sii daranna kaba sii daran waxaan u baahannahay walaalayaal inaynu is-ilaalinno oo carabkeenna ilaalinno oo dadka muslimiinta walaalaheenna nabadgelinno oo waxa aad dadka ku sheegaysaa ay kaa mashquuliso ceebtaadu kaa mashquuliso waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka axmed iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi anas nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii kor loo sii qaaday habeenkii kor loo sii qaaday wuxuu yidhi waxaan sii maray dad marartu biqowmin lahum adfaarun min nuxaas waxaan sii maray buu idhi dad ciddiyo leh ciddiyahooduna waxay ka samaysan yihiin nuxaas birta nuxaasta ah yaqmishuuna wujuuhahum wa suduurahum ciddiyaha dheerdheer ee biraha nuxaasta ka samaysan waxay ku xaganayaan wejiyadooda iyo laabahooda wejigiina way diirayaan laabtiina way xaganayaan oo waa diiranayaan iyagaa iscunaya markaasaa waxaan idhi buuhi waxaan jibriil ku yidhi jibriil baa la socda nebiga sal lla alay waslm man haaulaa'i yaa jibriilow kuwani maxay ahaayeen dadkan ciddiyaha biraha ale ee wejigoodii iyo jidhkoodiiba macnaa xaganahaya iscunahaya maxay ahaayeen markaasaa wuxuu yidhi jibriil haaulaa'i aladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim kuwani waa dadka hilibkooda kuwii cuni jiray sharafka dadkana ku dhici jiray oo wax ka sheegi jiray kuwii weeye oo sidan u ciqaaban saas way macnaha yacni waxa weeyaan maadaama dadkii aad ceebayn jirtay oo wax ka sheegi jirtay waxaa lagugu ceebaynayaa adiga laftaadii inaad iscunto ood isxagato ood isbaabbi'iso ood haraggaagii faydo ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kugu ibtilaynaya kugu imtixaanaya sidaasay u ciqaaban yihiin waxaa loo baahan yahay marka walaalayaal in aynu carabkeenna ilaalinno oo xanta dadka muslimiinta ka ilaalinno aad buu u diidi jiray nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ugana dagaalami jiray qodobkaasi xanta markaan ka nimaanno waxaa soo raaca oo qodobka xiga uu yahay ood carabkaaga iyo afkaaga iyo adinkaagaba ka ilaalin inaad muslimiinta isku dirto
waxa la yidhaahdo annamiima oo qodobka labaad ah namiimada nebigaa qeexay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi atadruuna malcadhu ma taqaanaan namiimadu waxay tahay ma taqaanaan wuxuu yidhi naqlu lxadiidi min bacdi annaasi ilaa bacdin liyufsiduu baynahum waxaa la yidhahdaa xanta inaad warka dadka u kala qaado si aad dhexdooda u fasaadiso heblaad war ka qaaday heblaad u geysay dhexdoodii baa fasaadiso waad isku dirtay way isjeclaayeenoo way isnaceen dad isku kalsoon bay ahaayeenoo kalsoonidii baa dishay maxaa keenay warkii aad u kala qaaday baa keenay waa namiimo warkan aad kala qaadayso dadkana fasaadinaya ummaddii isku diraya kala geynaya quluubtooda isku garaacaya waa namiimada waa namiimadaasina iyaduna waa qodob aad halis u ah waxyaalaha carabku kasbadayna ka mid tahay waxyaalaha carabku kasbado ayay ka mid tahay waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid imaamu axmed uu soo saaray min xadiidi cabdiraxmaan ibni hanmin طبرانينا وصوصاري من حديث عبادة بن صامت وحو النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله أمتي إذا أخيار تيد وحوي كوا مركي لا أركو إلهي إلا حسوستو تيد وحاجر مركي إيش هذا قبط خشوع ديس إيا مقال كيسو إلهي كو حسوسيني إلهي كو حسوسيني ummadayda kuwaasaa akhyaartooda buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa shiraaru ummati ummadayda kuwooda sharka yaani kuwooda shar kale kuwa shar kale ee xunxunka ah ee ummadda ka tirsani almashaa'uuna binnamiima waa kuwa u socoshada badan isku dirdirka dadka waxay ka shaqeeyaan dadka inay isku diraan dumar waxaa jira aan shaqo kala balahayn guryo ma fadhiistaan caruur ma koriyaan ganacsi kama shaqaystaan shaqadoodu waxa waagu markuu bariyo ayay guryaha ku wareegtaa subaxdii bay soo kalahdaa hebla ka wardoon way soo salaantaa way la soo shaahdaa way la soo qaxwaysaa war bay ka soo qaadaa way ka tagtaayoo tu kale haddana la qaxwaysaa warkii bay geysaa tu kale haddana la soo shahdaayo ka soo qaadaayo mid kale u geysaa maalinkii waxaa laga yaabaa intaasoo guri intay isu marto mid walba intay sir ka soo qaadda inay ka kale u gudbiso almashaa'uuna binnamiima isku dirdiriddiya warka la kala qaado kuwa u socoshada badan almufariquuna bayna alaxibba dadka isjecelna kala geeya dadka isjecel ee isku kalsoon kala geeyo oo isku dira albaaquuna alburaa'aa alcayb dadka aan ceebta lahayn ee fayow ee akhyaarta ana ceebta u raadiya ceeb bay u raadiyaan ruuxi waa ruux nadiif waa ruux magac leh waa ruux ilaahay ka baqaya waa ruux muxuu ahay daahir awey ruuxiina waxaa loo raadinayaa ceebo uusan lahayn in lagu kabkabo in la saaro dadkaasaa ummaddayda ugu shar badan buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh namiime iyo xumaanta unu ka shaqeeya dadka isjecel isku diroo warka u kala gudbiya dadka aan ceebta lahaynna ceebta u raadiya dadkaasaa ummaddayda ugu xun buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi isagoo min xadiidi ibni cumarna sidoo kaleeto waxaa soo saaray alimaam albayhaqi fii shucab aliimaan waana xadiid xasan awey waa xadiid xasan ah xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa dadka ka shaqeeya namiimada iyo isku dirdirka inay yihiin dadka ugu liitay ugu shar badan ummadda ilaahay agtiisana tabaaraka wa tacaala dadkaasi cuquubay ku leeyihiin cuquubadaasi waxaa ka mid ah qabriga horta waa lagu cadaabi qabriga waxaa ku sugaya waa cadaab xadiidkii cabdullaahi bni cabbaas fi saxiixayn nebigu wuxuu soo maray laba qabri buu soo maray markaasaa wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaan
labadan qabri dadka ku jira waa la cadaabaya wama yu'adhabani fi kabir waxa loo cadaabayana wax weyn oo ka tagidiisa iyo deyntiisu ay cuslayd ma ahayn ma cuslayn inay iska daayaan bala innahu kabir laakiin dambi weyn buu ahaa gelitaankiisu waa fududaa inay iska daayaanna waa fududayd laakiin dambi ahaan waa weyn yahay buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadan qabri dadka ku jira saasay u cadaaban yihiin ama ahaduhuma fakana la yastanzihu min albawl midkood labadan ruuxeed cadaab meesha ku cadaaban midkood kaadida muusan iska daahirin jirin kaadida jirkiisa iyo dharkiisa muusan ka daahirin jirin Soomaydaan arag dad islaamnimo sheeganaya oo intay kaleedhiyaan oo kaajaan ayagoon iska dhaqin oon iska nadiifin oo jirkooda ka dhawrin iska dhaqaaqa qaar badan sidii la isaga daahirin lahaa kaadidoo la isaga ilaalin lahaa taxadarkeedii ma qaadanayaan qabrigay ku cadaaban yihiin wa amma al-aakharu fakana yamshi bin namima ibn nabi sallallahu alayhi wasallam kan labaadee meesha ku cadaaban wuxuu u cadaaban yahay wuxuu u socon jiro ka shaqayn jiray inuu dadka isku diro oo warka u kala gudbiyo marka horta qabriga waa lagu cadaabi hadaa tahay dadka warka kala gudbiye isku dira dadka qabriga cadaab baa kugu sugay qiyaamada Soomaha nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadith Hudayfa fi sahihayn la yadkhulu al-jannata qattatun jannada ma galayo ruuxa dadka isku diree warka kala gudbiya jannada gali maayo marka qabrigana cadaab baad ku gali aakhira marka tagtana cadaab baad gali waxa inta soo dhan kaaga daran acmaashaadii aad samaysatay dadkii aad xamatay iyo dadkaad isku dirtay ayaa acmaashaadiina loo qaybin doonaa dadkaas aad wax yeeshay ama afkaaga ama adinkaaga dadkaad wax u geysato dhibaatada u geysatay soonkaagii iyo salaadaadii iyo xajkaagii iyo sadaqadaadii ayay aakhira u fadhiyaan oo ay qaadan doonaan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam atadruna mal muflis mataqaanaan ruuxa caydha ah markaas waxay yiraahdaan nabi allah cayd waxaan u naqaanaa annaga man la dirham lahu wala dinar ruuxan shirin haysanin oon dirham haysanin oon diinaar haysanin xoolo aan lahayn baan annaga u naqaanaa cayd markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al muflisu min ummati ummadayda ruuxa caydha waxa weey waa ruux iimaan doona aakhiro wuxuu la iimaan doona acmaal salaad soon sadaqo acmaal waaweyn buu la iimaan doona markaas markuu acmaasha la yimaado ayaa waxa iimaan doona dad badan oo uu xantay qaar uu gacantiisu gaadhay dad uu dhibaato u geystay dad uu qadfay dadkii baa meesha soo istaagaya maxkamadda rabbi buu saaran yahay markaas leeyin rabbi oo ruuxan xaqnagi naga sii waxa loo qaybinayaa acmaashiisii marka salaadii qaar baa la siin sakadii qaar baa la siin sadaqadiisii qaar baa la siin soonkii qaar baa la siin markii la qaybiyo xuquuqdoodii la siiyo qaar baa wali soo haray oo waxoodii aan la siin amalkiisina waa dhamaan markaas leeyin rabbi oo xaqnagi ilaahina waa caadil tabaaraka wa taala maxaa la sameeynaa marka dambigii ay galeen dadkani oo dhibaatada u geystay xantay ee dhibka uu geystay ee uu gacantiisu gaadhay dambigoodii inta laga soo qaada dusha laga saaray markaas naarta loo kaxaynayaa away marka waxaad shaqaysatay dad baad u shaqaysay saas daraadeed baa waxay dhigi jireen culimada salafka qaar kamida waxay dhigi jireen marka la yiraahdo hebel baa wax ka sheego waa lagu xantay oo hebel baa ku xamanayo wax ka sheegayo ku caayay marka la yiraahdo wuxuu dhigi jiray oo maanaaba heli karaba amal aanan shaqaysanin in la ii shaqeeyo oo la isiiyo waxaan heli karaba ma aha sidaas daraadeed aakhirana waa sida waxa xigta markaad warka kala qaadood kala gudbiso dadka aad warka u kala gudbisay wixii dib ee kala gaadhana adaa dambiga iska leh hadday islaayaan adaa dambiga leh hadday isnacaan adaa dambiga leh
hadday isdakhraan adaa dembi gale hadday isxantaan adaa dembi gale haa marmarka qaarkood waxaa dhacaysa guryaha ku dumaya oo gurigii baa loo kala warqaadaya ninkii xaaskiisii baa loo kala warqaadaya labadii la isla qabay baa warka loo kala gudbinaya war aan jirin ama jiraa loo kala gudbinaya guryihii baa dumaya shaqo shaydaan waay waxaasoo dhan adaa xambaarsanaya kelimo yar oo gaaban oo laga yaabo si fudud inay kaaga baxday baa dhici karaysa inay ka dhalato dunuub aad u waaweyn oo guryo ku dumaan oo dad isku laayaan oo ummadi ku fasaado oo dhiig ku daato waxaasoo dhan yaa xambaaraya ruuxii warka gudbiyey marka xanta iyo isku dirka iyo warkan la kala qaadayo iyo carabkan aan kontaroolka lahayn walaalayaal waa waxyaalaha cadaab inoogu sababaya adduunkeennana fasaad iyo dhib iyo cuquubo rabbi inoo soo jiidi doono carabkaaga ilaasho oo dantaada garo oo dadka ceebahooda ha raacraacin oo haddaad aragto xataa u ceeb astur ruux muslim oo walaalkaa ah xataa hadday si aadan ku talagelin ceebtiisa aad u daalacato kuugu soo baxdo ceebtiisa astur oo qari ilaahay baa ceebtaada asturi tabaaraka wa tacaala haddii aadan ogaaninna haba raadsanin haddaad maqashana difaac oo ha u qoslin hana dhegaysanin hana u marxabaynin ruux walaalkaa oo hilibkiisi la cunayo ama ruux walaalkaa oo la dhaleecaynayo ha dhegaysanin hana u marxabaynine ka celi kan samaynayana danbaa ugu jirta inaad ka celiso walaalkaaga la xamanaya la dhaawacayana danbaa ku jirta inaad ka celiso adigana danbaa kuugu jirto ilaahay baa ku difaaci tabaaraka wa tacaala meel aad jeceshahay in lagu difaaco ayuu ku difaaci haddaad difaaci weydana meel sidaasoo kale abaa adigana lagugu difaacaaga laga tegi doonaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala garabkaaga ka bixi doonaa ilaahay tabaaraka wa tacaala walaalayaal carabkeenna iyo afkeenna iyo adinkeedana allah inoo xifdiyo ee ha lays ilaaliyo khaasatan haddaad dumar tihiin shaqada waayahan aad u badatay oo guryuhu ku dumeen oo mujtamaceennu ku fasaaday oo dhibaatooyin badan ka dhalanayaani waa carabka iyo waxyaalaha ka dhalanaya iyo xanta iyo warka la kala gudbinayo ilaahay ha laga yaabo tabaaraka wa tacaala oo waxyaabaha la iska ilaaliyo allah tabaaraka wa tacaala hana waafajiyo wixii khayr ah wixii xumaanana ilaahay naga sarfiyo hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاك الله خيرا شيخ محمد إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه شيخ ميسان كيسا حسناتك وقدره مالين وقباه بدني هيمانته وإلهي سبحانه وتعالى سببت هذا وجنك وجاي محاضرة داسية محاضروين كلا وسوتش يدين هيبة إننا إلهي سبحانه وتعالى هينقدك تقوى هذا الكاقاتا وإلهي سبحانه وتعالى وكو أنفعه وحن كتير مؤتمر كإسلامي جاها maxaan ku idhaahdaa laga qabanaya koonfur afrika gaar ahaan magaalada johannesburg waana maalinkii labaad ee mu'tamarkaas socdo waa muxaadaradii shanaad ee mu'tamarka muxaadaradan ciwaankeedu waxay ahayd alghiibatu wan-namiima xanta iyo isku dirtka oo rag iyo dumarba khusaysa inta markaan ka baxo waxaan u gudbaynaa siduu ballanku ahaa su'aalaha maxaan ku idhaahdaa ay gabdhuhu soo gudbiyeen inuu sheekhu inta uu ka gaari karo uu ka gaadho inta aanan su'aalaha furin qolada maamulku waxay iga codsadeen maxaan ku idhaahdaa laba iclaan in la soo jeediyo iclaanka hore waxaan doonaynaa in qumaati loo dhagaysto iclaanka hore waxaa weeye iyo ogeysiiska hore waxaa jira gabdho soomaaliyeed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana khayr ha siiye goostay inay dacwada iyo diinta wax u taraan waxyaalahay diinta wax ugu tarayaan iyo masaajidkan iyo markaska iyo guryaha masaajidka loo gadaya waxaa ka mid ah inay xooggooda sadaqaystaan xoolahooda qaar ka mid a ay sadaqaystaan waxay sadaqaysanhayaan waxaa ka mid a inay raashin kariyaan maadaama magaalada uu shir ka jiro dad badanna ay iman hayaan gabdhuhuna ay aad xaafadihii uga soo tageen iyo ragguba raashinkaa in laga gato wax allaale wixii faa'iide ahee ka soo baxana ay dacwada iyo diinta iyo aabbahood iyo hooyadood iyo qaraabadii ay u sadaqaystaan waxaa marka culimmada iyo gabdhuhuba ay codsanhayaan in gabdhaha raashinka laga gato waa maanta oo axad ah berri oo isniina ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ina gaadhsiiyo iyo talaadadaba saddexdaa berina waddanku waa fasax
gabdhaha hadda dhowr meelood bay ku soo diyaarinayaan iyaga naftooda qorshihii baa ka xumaado durba ma ayna sii gadanin qalabkii oo waddankii baa fasax ka ahaa si kastaba ha ahaatee dhowr meelood bay ku soo kala karinhayaan meeshaasay soo dhigi doonaan kor baa lagu qadayn doonaa rag iyo dumarba way ka gadan doonaan insha allahu tacaala sanadkii hore way sameeyeen khayr allaha siiye wayse ku yaraatay waxay moodahayeen markii hore maxaan ku idhaahdaa 50 kiili iyo wax saasay kariyeen saan haddayna daakiradu khayaamin markiiba way ka dhammaatay makhaayadaha magaalada ku yaalla naftoodu way la socdaan waxay yidhaahdeen qadada waanu yaraynaynaa si gabdhaha dacwada iyo ilaahay daraaddii u karinhaya raashinkaa looga gato khulaasadu waxay tahay jasaakum allahu khayran gabdhuhu saddexdaa maalmood inay biilka maxaan ku idhahdaa xagga usoo maaragtay ay u soo jeediyaan intaa ha lala socdo iclaanka labaad waxaa weeye gabdhuhu markay iman hayaan masaajidka sheekhu wuxuu ka hadlahayay khiibada iyo namiimada adi naftaadu inaad sababto in lagu xanto oo wax lagaa sheego oo muslimiintii maxaan ku idhaahdaa aad dembi u soo jiido lama ogola mawaatinu shubhatu maaragtay inaad istaagta lama ogola gabdhaha maxaan ku idhaahdaa xijaab dhammaystiran oo ixtiraaman ha la soo qaato laakiin haddaad soo qaadato maxaan ku dhahdaa diric sakaraada indhahana aad soo xidhato haddii adaaba isu sababahaya maaragtay inaad maaragtay aad wax lagaa sheego ama diintii baad dhinac kaga istaagaysaa oo maxaan ku idhaahdaa xijaab iyo maxaan ku idhaahdaa dhammaystiran oo ilaahay subxaana wa tacaala gabdhaha siduu ugu talagalay ah ha soo xidheen jasaakum allahu khayran labadaa iclaan in la jeediyo raggana waa loo jeedin doonaa insha allahu tacaala gabdhahana insha allahu qadadii way soo diyaarinhayaan gabdhaha laga gato intaa markaan ka baxno waxaan u gelaynaa su'aalaha waxaan la yaabay su'aalaha markaan akhrinayay su'aalaha ugu badan oo labadii su'aalooda la keena ama saddexdii su'aalooda la keenaba qaarka ugu badan maanta waxay ku wareegahayaan timaha ma la madoobayn karaa sheekh kalarka ka waran kalarkiibaa iga gu'ila maxaan sameeyaa waan u geli doonnaa kuwaas laakiin su'aal muhiim ah ayaan rabnaa maxaan ku dhahdaa inaan ka horraysiinno oo ka baxsan maxaan ku dhahdaa mawduuca sheekha uu ka hadlahayey su-aashaas waxa weeye gabadh baa sheekh soo qortay su'aal waxay tidhi ilmo ma dhalo wax ubadahan iskala ahay marka hore in loo duceeyo ilaahay subxaana wa tacaala gabadhaa inuu ubad siiyo marka labaad waxay tidhi dhakhaatiirtaan tegay waxay igu yidhaahdeen ilaahayba kuuma abuuren wax ugxan ah ugxantii lagu uuraysan hayeyba ilaahay adiga maaragtay kuguma beerin waraysi badan dheer kadib markaan yeeshay dhakhaatiirtii waxay igu yidhaahdeen ugxanta waa lagugu beeri karaa si aad u uuraysato walaashay ugxanteeda intii la soo gooyo ma laygu beeri karaa si aan u uuraysto wajazaaka allahu khayran bismi illahi raxmaan raxiim gabadhaas horta ilaahay tabaaraka wa tacaala caruur khayr qabta allaha siiyo ilaahay baa carruurta bixiya iyad iyo intii carruur la'aanaba waa midda labaade carruurta haddii ilaahay ku siin waayo waa nooc imtixaan oo inaad ku sabirto u baahan oo ilaahay baa addoommadiisa qaarna carruur siiya qaarna ka qadiya kuwa uu siiyeyna waa ku imtixaanay kuwa uu ka qadiyeyna waa ku imtixaanay adduunyaduna waaba imtixaankaasba waxaa waajiba marka inaad u sabirto ood ku sabirto ilaahay qaybtiisa iyo qismadiisa qodobka xiga haweenta muslimadda ah haddii aynan ayadu sidaa la sheegayo ayna dhali karin oo si dabiiciyo caadiya aynan u uuraysanaynin ha ahaatee ayada ugxanteeda ama ukunteeda iyo ninka qaba biyihiisa laysku abuuri karo sidaana ilmo ay ku heli karto taa iyada ah culimmada qaybo ka mida waxay leeyihiin dhibaato ma leh waa qaab ilmo loogu raadinayo laakiin waxaa sharti ah ayada iyo ninka biyihiisa laysku abuurayo inay isqabaan baa sharti ah
waxaa kaloo sharti ah inay qaabkii caadiga ahaa ayna u dhali karin qaabka bini aadamku uu u tarme ee dumarku u uuraystaan ee iska dabiiciga qaabkaana waa inaysan u dhali karin labada shay ee la isla falgelinayana waa in la hubiyo oo la xaqiijiyo inay labadoodii yihiin isqabay halkan waxaan ka fahmaynaa labada shay ee la isla falgelinayo hadduu midkood uu ka yimaado labadoodii isqabay cid aan ahayn ama ukuntii baa waxay ka timid bannaanka ama ninka biyihiisii ma ahee kuwa kalaa bannaanka laga keenay markaasi ilmaha qaabkaasi loo samaynayo waa ilmo xaaraam ah ilmo sharciya ma aha leanna ukunta iyo biyaha isla falgalayaay xadhig isuma hayo ninkaagu aduu ku qabaa laakiin walaashaa ma qabo wabitaali walaashaa ukunteeda iyo biyaha ninkaaga in laysku abuuro waa ilmo aan sharci ahayn waa ilmo aan sharci ahayn bimujarad inta laysla falgeliyey in la geliyey makaankaaga iyo minkaaga oo halkaa ay ku korana sharciyo ma siinayso waxaa sharti ah inay labada shayba xadhig sharciya isu hayo labada ruux ee manida iyo ukunta leh labadoodaba waa inuu xadhig isu hayo xadhig sax oo sharciya waa inuu isu hayo haddii taa la waayo wixii meesha ka yimaadee ka soo baxa waa xaaraan waxaan ku dhihi lahaa marka walaalle ilaahay khayr ha ku siiyee haddiiba ilaahay uusan ku siininba ukuntiiba oo sababtii uurkuba ku imaan lahaa uusan ku siinin waxba ha islu goynin qaybtaa ilaahay iyo qadartaa uu kuugu talagalay ku sabir isaga dulqaado isaga adkayso in sha allahu tacaala muxuu ahaayey ilaahay caaqibadaada ha hagaajiyo sidaadaasi ku khaatumayso in sha allahu tacaala laakiin dariiq khaldan ha marin wabillahi towfiiq jazaaka allah khayr baaraka allah fiika sheekh ninkan waa dadka dibadda ka soo qoray internetka qaybta internetka nooga soo gudbanaya su'aalaha wuxuu leeyahay sheekh adiga iyo culimada kale sheekh shibli iyo sheekh maxamed idriis iyo ilaahay daraaddii baan idin jeclahay intaa kadib wuxuu leeyahay waxaa jira gabadhaan ilmaadeernahay oo aad u xan badan dhowr jeerna waan uga nasteexeeyey waan keri waayey waan gooyey marka gabadhii wax dembi uma iga soo gaadhahayaa su'aashaas waxaa jira su'aalo la mid oo gabdhuhu soo qoreen marka sheekhu isku si unbuu uga jawaabi gabadha markaa intaad u nasteexayso ay diiddo ma la goyn karaa mise lama goyn karo bismi illahi raxmaan raxiim masalada ku saabsan ruuxa xanta badan ee ku ibtilaysan xanta ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waajibka kaasaana waa inaad u naseexayso waa addiinu nasiixa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka mu'miniinta ah waxyaalaha uu beecad iyo ballanta kula geli jiray waxaa ka mid a annusxu likulli muslim ruux kastoo muslima inaad u naseexayso khaladka uu ku jira inaad ka qabato wixii wanaagaad og tahayna inaad u sheegto ood ugu naseexayso hadduu ruuxu nasiixadii diido waxba kaa qaadan waayo laba mid waayo goynta aad goynayso inaad lafahaaga ula cararayso ood isleedahayeeno adiga dhib kaa soo gaadhin waxba kaama yeelahaye sidaa hadday ujeeddadaadu tahay waad goyn kartaa markaa sababtu waxay tahay asagii haddaad kari weyday adigiina xantii haddii aad ku dhex jirto laga yaaba inuu ku saameeyo markaa waad goyn kartaa waa nooc tacsiir iyo ta'diib sharciya wa adigii nabadgal wax la yidhaahdo adigu badbaad yaad markaa ku jirtaa mar kalena waa okay oo waad goyn kartaa waa marka aad isleedahay haddaad goyso ood hadalka ka goosatood xidhiidhka u jarto waxoogaa waxbay u taraysaayoo cadaadis buu dareemi oo inuu ku waana qaataa dhici karta markaana iyadana maslaxaa ku jirta inaad goyso maslaxadaasaa marka la fiirinaya haddaad adiga lafahaaga isleedahay amuu dembi kaa soo gaadhana waad goyn kartaa haddaad isleedahay isagii bay wax u taraysaayoo cadaadis buu dareemayaayoo
markaad goyso isagii baa laga yaabaa inay wax u tartana ayadana waad goyn kartaa hajrigu marka iyo goynta ilaahay dartii ruuxa loo gooyo waa tacsiir waana nooc edbin ah shareecaduna way qabtaa laakiin waxay ku xidhan tahay maxaa maslaxo ka dhalanaya haddii maslaxada ka dhalanaysa markaasi ay muuqato ama adiga kuu soo noqonaysa ama isagii ruuxii la goynaya u noqonaysa hadday tahay markaa waa la goyn karaa oo nebigayba ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxaabadiisa qaar ka mida waa kii gooyey yacni dumarkiisa mar buu ka hijrooday hijradaasi marka waa mashruuc mar kastoy maslaxadii dhalinayso wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayran sheekh maxamed wabaaraka allahu fiik sheekh gabadhana waxay leedahay sheekh maxay ka qabtaa shareecada islaamku daawada la marsado ee madoobaysada ah timaha iyo cediyaha waxaa kaloo jirta gabadh iyaduna isla su-aashii soo qortay oo ah aniga nafteyday ii marsan tahay daawadii kalarka ahayd wayna iga gu'i weyday maxaa xal ah bismi illahi raxmaan raxiim ziinada iyo quruxda iyo in la isqurxiyo asal ahaan waa mashruuc asalkeedu waa mashruuc qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waalayibaati min alrisq yaa dadka ka xarimay oo yaa u diidi kara ilaahay quruxda uu u banneeyey iyo waxyaalaha wan wanaagsanee tayibaadka ah ilaahay baaba u banneeyey yaa kaloo u diidi kara waa laakiin ziinada iyo quruxda iyo isqurxinta khaasatan dumarka waxaa loo ruqseeyey oo loo oggolaaday isqurxin marka la yidhaahdo waxyaala aan ragga loo oggolayn waxyaala baab isqurxin markii la yimaado waxyaala dumarku khaas la yihiin baa jiroo ragga loo diiday ayaga marka ruqsay waxyaalo badan u haystaan ha ahaatee waxyaaba aan loo oggolaynna waa jiraan oo haweenku markay isqurxinayaan oo jidhkooda qurxinayaan waxyaalo shareecadu u diiday baa jira oo waxaa ka mid a maalan in ay maalan timaha indhaha ka koreeya in ay qorto oo kale oy qaansayso timaha inay qaansayso oo kale waa la diiday ilkaha oo kale intay qorqorto inay fanax ka samayso waa la diiday jidhka oo kale midab aan midabkiisii ahayn in lagu tallaalo waa la diiday yacni qaabab fara badan oo laysu qurxiyo waxaa jira shareecadu ay diidday baa jiro iska cad oo lacnad ku timid weliba isqurxintaadu marka waa inay shareecada waafaqsan tahay wixii shareecada waafaqsan waa lagu ogol yahay isqurxi ina allaha jamiilun yuxibu اljamaal ilaahay waa quruxsan yahay quruxduuna jecel yahay taa laguma diidin laakiin waa inaadan xuduuddii shareecada dhaafin waxyaalo fara badan oo hadda adduunka iyo kambaniyadan ganacsigu ay soo saareen dumarku inay isku qurxiyaanna ay ugu talagaleen in badan oo waxyaabaha ka mida darar iyo dhib baa ku jira ama jidhkii bay dhibayaan ama waxay dhibayaan timihii bay dhibayaan ama caafimaadkii bay dhibayaan waxyaalo fara badan oo isku qurxinayaan dumarku waa kiimika waay waxyaalo kiimiko oo halis ah oo kambaniyadani ay ugu talagaleen ayagu inay lacag uun ku helaan adiga dhibaatada ku gaadhaysana aan dan laga lahayn waxaa ka mid ah suntan dadku ay dumarku isku caddeeyaan oo midabkii madowga ahaa ama maariinka ahaa lagula dagaalamayo daaway dhahaan soomaalidu daawo caddaysay dhahaan daawo maaha waa sun daawo maaha waa kiimika halisa waay haweentu markay baratana jidhkeeda waxaa ka baaba'aya oo dhammaanaya oo haragga jidhka ka dhammaanaya waxa la yidhahdaa manaacadu waxa weye waa jidhka difaaciisa haraggan kore wuxuu leeyahay difaac loogu talagalay inuu qorraxda iyo dabka iyo qabowga isaga difaaco markaas kiimikada noocaasa aad u isticmaasho dabka uma adkaysan kartid qorraxda uma adkaysan kartid qabowga uma adkaysan kartid waxyaalihii jidhku inuu iska celiyo loogu talagalay oo dhan baa baaba'aya waxyaalo badanoo noocaasaa jira waxyaalo badanoo timaha la mariyo caafimaadkii bay dhib u geysanaya warka murtidiisu waxa weeye
in badan oo ka mida waxyaabahaasna asalkoodu waxay ka soo jeedaan nooc waxaa ku jira gaala ku dayasho ah. gaala ku dayasho inay gaala intay majaraha inoo qabtaan maalinba wax inoo soo saaraan telefishinka inaga tusaan wixii isaga ah aan shaqo ka dhiganno maanta aan idhaahno sheekh timaha ma la kalarayn karaa timaha ma casayn karnaa berrina waxaa imaan doonta kalarkii iyo casayntii intay beddelaan inay ka dhigaan waxa la yidhahdo cirro timo cad oo cirro ah ayaa quruxdii loo beddeli telefishinkaa dhowr beli laynaga tusi timihiioo cirro noqdoo caddaaday oo qurux badan kadibna waa laynaga dhaadhicinoo waa laynaga gadi gabadhii muslimadda ahayd berrina sheekha waxay weydiin doontaa sheekh timaha cirro ma laga dhigi karaa maantana waxay taagan tahay timaha kalar ma laga dhigi karaa berrina cirro ma laga dhigi karaa adiga inaad uun daba guurto uun gaalo iyo kambaniyadeeda iyo waxay soo saarto suuq lagaa dhigto gabadha muslimadda haddaad tahay ma habboona quruxda la yaqaano markay timo noqoto timo quruxdoodu waa madow sidii ilaahay u abuuray oo u yeelay bayna ku quruxsan yihiin markay ciroobaan baa beddela la yidhi madowgana ka ilaaliya kalarrada kale ku beddela laakiin timo madow sidooday ku quruxsan yihiin ilaahay quruxduu siiyey dabiiciga ahaa bay leeyihiin quruxda kale loo raadinaya maxay tahay marka quruxda kale loo raadinaya waa mid musannaca oo la sameeyey waay waa mid la sameeyey laynaga gaday laynaga dhaadhiciyey maskaxdeenna la qabsaday waay anugu waxaan dhihi lahaa gabdhaha muslimaadka ah waa inaynan aad isu raacinin waxyaalahan kambaniyada gaalada ka soo baxaya ay suuq geynayaan ee jidhkooda ku saabsan sax wixii naaficoo manfacale ka qaata laakiin wax kasta inaan iska dabagallo masalo qurux badan ma aha garan maayo sharcan ma garanayo wax nasan diidaya oo mancinaya ma garanayo laakiin masaladu markay noqoto qaab gaalo uun iska raac gaalaa ka soo fushay raac ayagaa naga dhaadhiciya ha la iska dabagalo masaladu waxay noqonaysaa man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum dad ruuxii isku shabbahoo dhaqankooda raacoo dabagala ayaguu ka mid yahay buu nebigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh isku kalsoonidu yaynay naga lumin isku kalsoonida yaan laynaga qaadin maskaxdeenna yaan la qabsanin duulaanka maskaxdu waa waxa ugu halisanoo bini aadamka lagu sameeyo waay maskaxdaada in la qabsado oo kambaniyadani ay keliyata maskaxdaada haystaan oo ku maamulaan waa wax laga quruxsan yahay wey wabillahi tawfiiq jazaaka allah khayr sheekh maxamed sheekh gabadhan waxay leedahay markii laga guurahaya guryaha waxaan dib u iibsannaa guriga naftiisii ruux kaloo guriga u baahan ayaa waxaad dhihi gurigaasaan ku siin laakiin furaha isii mararka qaarkood waxay leedahay ama alaabbaa taalla ama alaab yaynan oolin macnuhu waxa weeye furaha gurigaas lacagtaan ka qaadanhayo shareecada islaamku maxay ka qabtaa bismi illahi raxmaan raxiim guryo furo la kala qaadanayo kolley ma garanayo annaga dukaamo furo la kala qaataan naqaanaa laakiin guryo deegaanoo furo la kala qaadanayo haddii wadcigan iyo noloshan ay ka jirto oo south africa laga isticmaalo oo waddanka curfi laga yaqaana ay tahay guriga markaad furaha ka qaadanaysana ama kaagii u yahay ama mid intaad kiraysatay oo agreementii iyo heshiis wakhtile aad gashay wakhtigii wax qaybi kaaga laaban tahay qaybtii kuu laabnaydna ruuxan aad ku wareejinayso uu yahay waddankana laga isticmaalo oo guryaha furaha la kala qaato sidaa uu yahay dhib ma leh laakiin haddaan waddanka laga isticmaalinoo curfi iyo caado waddanka laga isticmaala aynan ahayn innaga soomaalidu aan soo gelinay oo hadda aan bilownay hadday tahay ma bannaana qodob labaad weeye guriga haddii aadan lahayn adiga laf ahaan aadan milkigiisa lahayn oo uu kiro kugu yahay kiro markuu yahayna aadan heshiis wakhtila haysanin sannad baad heshiis qoratay 2 sanaad qoratay 3 sanaa kuu qoran yahay wakhti baa kuu laaban
ruuxan waxaad kula heshiinaysaa waqtigii ii laabnaa gal oo intifaacso anigana waqtigaa ii laaban ee ii qoran iga iibso haddii aynan sidaa ahayn oo gurigaba heshiis uusan jirin ee lagu geliyey kiraysatay maalinkii la doonana lagaa saari karo manfacada aad ruuxa ka iibinaysaaye maba lihidba maxaad ka iibisay ruuxan maanta markaad fura intaad ka qaadatay aad ka baxday oo uu soo galay ruuxii guriga lahaa xaq wuxuu u leeyahay intuu yimaado inuu ka saaro marka waxa way su'aashu bima ta'kulu maala akhiika walaalkaa xoolihiisa maxaad ku cuntay waa xaq darro dhaqanka noocaas oo kale ah wuxuu hadda ka bilbilowday oo Soomaalidu ka bilaabeen Nairobi laakiin furo laguma magacaabee waxoogaa gurigii lagu jiray alaabadiisii iyo wixiisii iyo waxoogaa iigu dar iyo qaab noocaasa kala hadda bilaabatay ma jiri jirin hadda ka hor waa dhaqan Soomaaliyeed kaan waxaan u malaynayaa mid uun isaga la mid oo la socda inuu meeshana ka jiro hadday suuradu noocaa tahay guryaha qaabkaasi furaha loo kala qaadanayaa waa xaraam waana xoolo xaq darro lagu cunayo shariicaduna ma ogola wabillahi tawfiiq jazakallahu khayr barakallahu fiik sheekh waxay leedahay gabadhan waxaanahay gabadh haddii la doonana garoob baanahay waxaan ka soo maqnahay waalidkay meeshan aan rabaa inaan ku guursado isagoon waalidkay loo sheegin ma guursan karaan bismillahi raxmaani raxiim ama gabadh ahaw ama garoob ahaw waalidkaa meel lagala xidhiidho hadduu leeyahay asagoon lala xidhiidhin oon lala socodsiinin oon soo fasixin haddaad guursato guurkaaga waxba kama jiro waa guur suuqa madow ah suuq madow guurka nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweenay kasta oo guursata lama kala qaadin gabadh iyo garoob haweenay kastoo guursata weligeedii oon u idminoon ogolaanin guurkeeda waxba kama jiro saddex goor nabigu ku celiyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh khudba sireedka iyo guurka qarsoodida waxba kama jiro waalidka oo lala xidhiidhi karo in laga tashado la iska guursado waxba kama jiro in laga kaxaysto inta lagu kaxeeyo waa lagu masaafaysan lagu yiraahdo meel baa laga soo guursanna waxba kama jiro ama waalidka laga guursado ama waalidka hadii la waayo qaaliga muslimiinta meesha u jooga ha ku guuriyo isaga markaa xilku ku wareegay labada waxaan ahayn waa waxaan jirin waa Soomaali haddaan nahayna mas'aladaasi aad iyo aad khaladaad aad u fara badan baan ka galay kagana jirnaa wadaadadeennii horena wax badan bay ina khaldeen waxyaalo fara badan oo shariicada khilaafsan oo baabka ku saabsan ayaa la baneeyay waana arrimo halis ah waa in marka sharafkaaga aad ilaashato dad gabadh muslimada ah sharafkaagu wuxuu ku jiraa ehelka iyo aabaha baa ku korsaday inaad ayagii ixtiraamto oo xaqoodii u dayso oo ninka ku soo doonaya ee ka raba guur ka rabaayay hadduu ku rabo ficlan oo ku doonayo oo u dhaqasho ka rabo inuu waalidka la hadlo kuma cusla adigana sharaf bay ku tahay waalidkaana sharaf bay u tahay laakiin ninka kule waxba ha isku lugoynin dib male inaga heshiinayno dhamaysanayno bari waxbuu maagan xalaal maalin baa la qashaa dharaar baa la qashaa wax la qariyana qurun baa ku jira ha warwareegaysanin sidii ceesaan baadi ana meelaha ayaan laga helin sidii ceesaan baadi ah meelaha dhagahayaan lu dhagta lagu qabsanine gabadh karaamo loo sharaf loo reer ka dhalatay baa tahay aabaha iyo reerkiina iyo walaalka iyo ehelkaagi ixtiraam oo xaqooda ha gacan dhaafin haddaad yeeli weydo Soomaha guriga aad dhisayso ma barakoobayo caruurta aad dhashana ma barakoobayaan
waalid meel lagu caasiyeyna baraka laga sugi maayo xuquuqdaasi waa inaan ilaalino waay maxaa waalidka talada lagu dhiibay oo loo yiri waalidka iyo walaalaha iyo awliyadan maxaa raggani taladaada qayb looga siiyay marka lagu guurinayo adiga dantaada iyo maslaxadaada waxa la diidan yahay in lagu siro wala siri dumarka mid waxa uu imaanaya khamarji ah oo khariban oo cayd ah oo diin laawa ah oo dhaqan lahayn baa uu imaanaya markaasuu intuu u yimaado u afmiinshaaraynaya xaggan uu sheegaya xoolaha xagga iga soo dumahaya intaasoo shirkadood baan leeyahay maraakiib iyo diyaaradaha ii shaqeeya waxbuu ku daldalahaya afmiinshaarnimadii buu gabadhii ku kharibaya hadduu kharibana ayadii ma xaqiijin karto wixii iskama xaqiijin karto shalay miyaheed shalay gabadh baa waxay igala soo hadlaysay Nairobi shalay alo meeshan jooga gabadha waxay joogtay xerada qaxootiga ifo nin baa u tagay guur baan ka rabaa buu way iska ogolaatay wuu guursaday wuu la aqal galay waxoogaayadii uu ka kala jabiyay markaas wuxuu yiri waan safrayaa in Nairobi baan gaadhayaa waan soo noqon doonaa miskiinta ninkan ma taqaano markaas waxay ku tiri lacag 40,000 oo haystay baan u dhiibayo waxaan idhi Nairobi markaa tagto alaab iigu soo gad 40,000 baan u dhiibay beetir Nairobi inuu soo aaday baa warkiisa iigu dambeeyay beetir Nairobi yimid xagee ka galay telefoonkii baan u diraa wuu iga dansadaa waan soo raadiyay Nairobi baan hadda joogaa beetir markay la hadlaysa gabadha isagii baan soo raadiyay telefoonkii markaan kula hadlayna wuu bedelay line-kiiba wuu bedeshay balu fiirso xubinkeediina waa ka kharibay xoolaheediina waa ka qaatay waana ka dhuuntay hadda waxaaba kama hadlaysa waxay leedahay xarigiiseen isaga furaa gabadhaasi hadday ehelkeedii iyo waalidkeedii iyo rag la tashan lahay rag baa rag la xaali lahaa rag baa rag iska celin kara laakiin adiga markaad sidii ceesaan baadiye dhagta lagu qabsado meelaha laga helo te adaa isdhigay meeshaas adaa isdhigay sharaftiina ku ciyaarina ragga guurdoonka waa la yaqaana dhaqashada doonaya aabbaha la hadal iyo walaalkay la hadal waxba kuma ah laakiin ninku markuu xumaan doon yahay oo habeen iyo laba habeen intuu kula seexdo inuu iska dhaqaaqa doonayaa yaani wax way dhib bay ku tahay walaalkay la hadal iyo adeerkay la hadal taas way macna xumaan inuu kugu sameeyo doonaya marka aynu ilaalina shariicada insha Allah ta'ala jazakallahu khair su'aaluhu way badan yihiin waqtuna waa gabagabo dhowr su'aalood baan insha Allah ta'ala sheekha weydiin doonaa kadibna waan gabagabeynaynaa sheekh waxay leedahay gabadhanu sheekh ruux dhintay hadduu riyo iigu yimaado oo uu wax ii sheego ama uu iiga soo warramo wixii ka qabsaday aakhiri iyo meeshuu aaday ma la rumaysan karaa mise lama rumaysan karo riyadu horta waa xaq laakiin riyadu waa laba nooc sida nabiga sallallahu alayhi wasallam riyadu waa laba nooc ama waa saddex nooc nooc waxa weeye shayaadiinta keenta oo habeenkii markuu ruuxu seexdo shayaadiintii baa imaanaysa markaasay qalbigiisa waxay ku ridayaan waxyaalahan argagaxa leh ee naxdinta leh iyo riyooyinkan iyo qarowgan qaar shayaadiintu ka yimaadaa qaarna wuxuu ka yimaadaa habeenkii markaad seexanayso eed hurdada sii gelayso waxaa jira aad ku sheekaysanayso qalbigaaga ku wareegaya adoo ku sheekaysanayaad seexan qalbigaagu arrintiibuu dib u soo celinaya cajaladii baa dib isu daaraysa markaasaa waxaad ku riyoonaysaa wixii aad ku sii seexanaysay midina waa sidaasoo waa sheekadii markaad seexanaysay aad ku sheekaysanaysay waa midda saddexaad waa riyada wanaagsanoo malaa'igta keenta qalbigana ku soo rida riyada malaa'igtu ay keento ayaa waxay ka mid tahay bishaaro ilaahay dadka mu'miniinta uu bishaareeyo nebinimada nooc ka midayna ah juz iyo gabal ka mida nebinimada ah saddexda nooc maadaama saddexda sababoodba ay ku imaanayso adiga riyada aad aragtay ma garanaysid saddexda mid ay tahay ma malaa'ig baa ku keentay
ma shayaadiin baa kugu akhriday waxaan jirin ma markaad seexanaysay baad ku sheekaysanaysay ma kala garanaysid sooma mar haddaadan kala garanaynin waxa aad ku riyootay ruuxa kuu yimid waa lay cadaabay iyo waa lay janneeyey iyo balaayaan la kulmay iyo nicmaan la kulmay warkaasi war siduu yahay loo qaadan karo maaha sidaa uu yahay looma rumaysan karo waxyiina ma aha waana arrin qayb oo naga qarsoon laakiin wax walba waa dhici kartaa saa inay u jirtana waa dhici kartaa inaysan saas u jirinna waa dhici kartaa wallahu aclam jazaaka allah khayr sheekh gabadhan waxay leedahay waddankii markaan joogay waddankii baan ka imid anigoo nin khudbad sireed ku soo guursaday aan la ogeyn